Qaraxa, oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ee meelaha fog laga hago, ayaa ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya waxaa lagula eegtay duleedka waqooyiga magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Ciidamada ayaa xilliga la qarxinayay howlgallo ka waday wadada u dhaxaysa magaalada Beledweyne iyo degmada Matabaan, waxaana qaraxa uu qabsaday gaari ay saarnaayeen rag ay wariyaal ka mid yihiin. Warar kala helaya ayaa sheegaya in qaraxa ay ku dhinteen ilaa 3 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo ay ka mid yihiin dadka dhaawacmay wariyaasha Khalid Maxamuud Ilkacse iyo Cabdikariin Shabeelow iyo nin kale oo magaciisa lagu sheegay Cabdi Gurey. Gaariga qaraxa uu qabsaday ayaa ka mid ahaa kolonyo ka mid ah ciidamada dowladda iyo madaxda gobolka Hiiraan oo howlgallo ka waday wadada u dhaxaysa degmooyinka Beledweyne iyo Matabaan.